waxaan noogu dhufanayaa maanta waxaan noo gelayaa garsoorka dembiyada dhalinyarada ee Ottawa maadaama Ottawa aan joogo xoogaa inaan maaragtay taabtan rabaa waxyaabaha la rabo inuu waalidku ogaado. With criminal justice, what parents should know. waxaa sameeyey mashruuca hoggaanka isku xirka bulshada ee qoyska CLNF July 2019. mashruucan hoggaanka isku xirka bulshada ee qoyska CLNF waxaa laga maamulayay dhanka xarunta shaqada xirfadda ee adduunka oo ka wakiil ah hay-adaha maxalliga ah ee adeegyada isbahaysiga soo galootiga LASI. waxaa maalgeliyey ka hortagga dembiyada Ottawa sidaa u taqaaniin waxaana hadda bixiyey xarunta Soomaalida ee adeegyada qoyska. mashruucan waxaa la diyaariyey iyadoo lala kaashanayo hay-ado dhowr ah. xogtana waxaa la qoray kadib markii la sameeyey wada tashiyo xubnaha bulshada iyo hay-adaha adeeg bixiyaasha. anigana maadaama aan maaragtay aan joogo meeshaan waxaan gartay inaan aan dadka aanan afka Soomaaliga kaliya ka saay oo weli aanan luqadda baran inay ka faa'iidaystaan oo aan usii jilciyo. hadafka ugu weyn ee mashruuca waxaa waaye in la kordhiyo aqoonta iyo xiriirka u dhexeeya bulshada soo galootiga ah, adeega bulshada ee guud ahaaneed iyo habka garsoorka, in kor loo qaado ka hortagga dembiyada, iyo in la kordhiyo aqoonta iyo fahamka mas-uuliyadda saaran waalidka iyo xuquuqda ay dhalinyarada leedahay. videogan wuxuu ka caawinayaa in aad garato calaamadaha lagu garto marka dhalinyarada halis ugu jirto inay dembi sameeyaan iyo sidii aad uga hortegi lahayd. inaad fahamto habka garsoorka iyo dembiyada Canada, iyo inaad ogaato adeegyada aad heli kartid. buuggan hadda gacanta aan ku hayo waxaa ku jira xog iyo macluumaad guud. xogtan ma bedeli karto booskii la talinta sharciga. haddii aad u baahato la talin sharciga ah, fadlan raadi qof qareen ah. macnaha kaama kaafin karto la talintii oo maaragtay dhinaca sharciga kaama kaafin kara, laakiin information gaaban oo ku siinayaa. korinta carruurta way adag tahay in la sameeyo, weliba way kasii adag tahay marka waalidka la kulmaan caqabado kale sida la noolaanta xaalada caafimaad, saboolnimo ku noolaashaha, ku cusboonaanta meel ama waageena aad ku tahay ama marti aad ku cusub tahay, ama aad la kulantid midabta kor ama waxyaabahaasoo dhigga ama kala qaadista ah, ama aadan ku hadlin Ingiriis ama Faransiis. buugyarahan waxaa ku jira macluumaad muhiim ah, waxayna bixisaa qaar istiraatiijiyad ah oo la tixgeliyo. baro calaamadaha lagu garto marka dhalinyarada halis ugu jiraan in ay dembi sameeyaan iyo sidii aad uga hortegi karto. dabeecado badan oo dhalinyarada ay leeyihiin waa iska caadi. waa inaad ka walwashaa haddii dabeecadaha qaar ka mid ah ay sii wadaan si qaab joogto ah. macnaha joogto hadday ka dhigaan dabeecadaha qaarkood waa inaad maaragtay aad ka walwashaa, waadna ka hortegi kartaa. caawinaadna waad heli kartaa ka hor intaan ilmahaaga dhibaato
kaga imaan xagga sharciga waxaad wici kartaa waxaan u malaynayaa dadka oo maaragtay soo wacay inay xoogaa wicitaan kaga joojiyaan aa ficnaan laheyd bara calaamadaha lagu garto markii dhallinyarada halis ugu jirto in ay dembi sameeyaan iyo sidii aad uga hortegi karto dabeecado badan oo dhallinyarada leeyihin waa iska caadi waa inaad ka ruwashaa haddii dabeecadda qaar ka mid ah ay sii wadaan ama si joogto ah ay maaragtay ay ka dhigtaan waxaad ka hortegi kartaa caawinaadna waad heli kartaa hor intaanu ilmahaaga dhibaato kaga imaan xagga sharciga waxaad wici kartaa 211 si aad u weydiiso wixii xog ama macluumaad ah ee ku saabsan adeegyada aad ka heli karto Ottawa ama Ottawa calaamadaha digniinta ah dhibaatooyinka qoyska kormeer dhibaatooyinka digniinta koowaad waa noo kala gogoynayaa digniinta koowaad baan hadda qaybtan ku darayaa qaybta kale waxaa ka dhigayaa magaciisiga waxaa digniinta koowaad dhibaatada qoyska waxaa ka mid ah kormeerka waalidka oo yar in aadan garanaynin saaxiibada carruurtaada iyo qoysaska iyo adiga oo garanaynin meesha carruurtaada waqtiga ku lumiyaan sida intaas aad ku samayn lahayd waa taqaanaa oo aad maaragtay inaad saaxiibada carruurtaada inaad weydiisid aragtid waxyaabaas hab aan shixin casharo dambe oo maaragtay magaciisyaal dambe soo geli doono ayaan si fiican ugu dhirin doonaa sheekooyinka tan waa Ottawa wixii community meeshan waxa ay maaragtay translate gareeyeen oo sharciga Ottawana ah hab shixin iskhilaafsan oo ilmaha aad kula kacdo sida in marka marna aad ku ciqaabto dhaqan xun wax yar kadibna aad ku iska indhatirto oo aad maaragtay iska indhatirto abaalmarin la'aan dhaqan wanaagsan markuu wax fiican sameeyo cunuga oo aadan thank you bravo waxba aadan dhihin shaqada guriga oo yar ama shaqo aan joogto ahayn shaqada guriga maba yaraan kartaba laakiin shaqada guriga oo yar waxaa waaye adaa yaraan kara weyneyni karo gurigaa waqti walba nadiif hadduu aado shaqada qolkiisa qofkaas uu ka qabanayo maaragtay ku filan saa u maleynayo shaqada guriga oo yar ama shaqo aan joogto ahayn iyo inaad u sheegtid carruurtaada inay u dhaqmaan si ka duwan adiga dhaqankaaga carruurtaada haddaa u sheegtid sida adiga aad ku dhaqmaysid maayo si kale aa uga sheekaysid waxba laguma jeedo cunug waa ku jahwareerayaa adiga dhaqankaaga bar adiga dhaqankaaga bar dhaqankaan barayaa haddaa dhahdid oo aad dhahdid dhaqan waxaan barayaa maaragtay uuna bakasi aadan ku dhaqmaynin jahwareera maaragtay cunug ku dhacayo sidoo kale qaybta saddexaad waa dhibaato ka jirta xiriirka qoyska sida khilaaf ka jira qoyska dhexdiisa dagaal xadgudub iyo dayac ka jira xagga guriga iyadoo waalidka isfuray ama hal waalid guriga joogo ama inaad leedahay waalid ama walaalo ku lug leh dembiyo cabitaanka qamriga iyo isticmaalka daroogada okay waxaad ka qaban kartidaa markaa lagu sheegayaa maxaad ka qaban kartaa kuley laakiin waxaad ka qaban kartidaa waxaa ah si wanaagsan u ilaali una kormeer carruurtaada ogow carruurtaada saaxiibadood iyo qoysaskooda waa inaad taqaanaa carruurtaada meesha ay waqtiga ku qaataan marka aadan joogin guriga carruurta uga tag qof mas-uul ah
ogow sharciyada ku saabsan xagga kaga tegidda carruurta keligood xagga guriga carruurta keligood oo aad isaga tegtid naftirkooda ogow sharciyada ku saabsan sharci ahaan carruurta da-dooda ka yartahay 12 sano lagagama tegi karo guriga keligood ama in la weydiiyo inay keligood daryeelaan walaalahood iyadoo ay ku xiran tahay heerka garaadka ilmahaaga carruurta da-dooda ay ka weyntahay 12 sano way joogi karaan guriga keligood wayna daryeeli karaan walaalahood xeerka ilmaha iyo adeegyada qoyska waa dembi inaad guriga uga tagto ilmo 10 sano ah keligiis ama keligiis uu daryeelo walaalihiis ka yaryar waa xeerka dembiga Canada kaas u tarbiya ciyaalkaaga qaab aan isburinaynin oo iswaafaqsan waa meesha hadday maaragtay kala hadal carruurta xeerka waxaa laga filaayo anshaxa iyo qiyaamka nolosha carruurtaada sii taageero niyadeed ku abaalmari dhaqanka wanaagsan ha ka qayb qaataan shaqada joogtada ah ee guriga oo mas-uuliyadda guriga qaybtooda ha ka qaataano dhis xiriirka iyo isku xirnaanta qoyska tus jacayl iyo kalgacayl carruurtaada waqti fiican wada qaata carruurtaada qorshee hawsha qoysku ka wada qayb qaataan u haw carruurtaada taageero wanaagsan ee qoyska u haw carruurtaada tusaale wanaagsan oo ay ku daydaan samey dhaqanka wanaagsan ee ku dayashada mudan oo aad rabto inaad barto carruurtaada yeelo qoys leh xasilooni dhaqaale iyo mid cadiifadeed tus xushmad naxariis iyo dulqaad saaxiibada iyo qoyska ah ku dadaal caafimaadka iyo habnololeedka isku dheeli tiran caawimo ka heli waxaa waaye ku dadaal caafimaad iyo habnololeedka isku dheeli tiran caawimaad ka hel ama ka raadso adigoo isticmaalaya adeegyada la talinta qaado casharo sida ciyaalka loo koriyo ama loo xaliyo khilaafaadka intaas waxaa qaybta koowaada nooga dhigayaa waa noo yaryareynayaa si oo maaragtay haddii hal mar buugga dhan la wada akhriyo waxay noqonaysaa qofku inuu maaragtay ka caajiso mise qaybtaan aan noo dhamaystiraa nusaaci soconay qaybtaan haddii aan isku dayi lahaa qaybta koowaad keliya haddii aan isku dayo nusaac waa soconay sidaa u malaynayo 10 daqiiqa dildo meeqay noqon kartaa ma dhow ya 5 daqiiqa dil lahay ay xoogaa ka fududaan malaynaya okay qaybtan kale waxaan ugu dirayaa maya shortkan finish dheh YouTube kana finish dheh